michael head aan soo qaato mar koowaad. michael head waa nin maraykan ah asal ahaan yuhuudiya, naaso researcher ka ahaan jiray, professor of physics ahaan jiray, jaamacaadka takhasusaad badan leh, waa maths, waa physics, waa astrophysics, waa computer science iyo law. shantaas subject ba takhasus buu ku leeyahay, shantaba degree buu ku sitaa. waa professor jaamacadeed. buugaag buu leeyahay ugu caansan yahay buugga la yidhaahdo The 100, boqolka buugga la yidhaahdo. buuggan 100ku waxa uu ku tilmaamayaa boqolka qof ee bini aadamka ugu raadaynta badan, the most influential persons in the history of mankind ayuu tilmaamayaa. boqolka qof ee ugu raadaynta badan bini aadamka. waa buug 500,000 copy laga iibiyey, ilaa 15 luqana ku tarjuman. ninkan odaygii markuu masaladan ka warramayo, isagu markuu isa sifaynayo wuxuu isku sifeeyey inuu yahay jeffersonian liberal. jefferson waa madaxdii soo martay maraykanka nin ka mid ah, nin liberaluu isku sifaynaya. laakiin qolada isaga radidaa markay sifaynayaan waxay ku sifaynayaan inuu yahay conservative iyo racial separatist bay leeyihin. waa nin muxaafid oo infisaali cunsuriya bay odhanayaan iyagu. nin yahuudiya oo dadka badhcunsurinimo ku sheegayaan oo maraykan u dhashay oo buug qoraya, oo buugga audiensku uu qoraya wax ka iibinaya aanay carab ahayn ay yihiin dadka afka ingiriisiga ku hadla, ayaa buug qoray. yacni waa nimaan xidhiidh ka dhaxaynin isagiiyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa buug qoray. buugga uu qorayo wuxuu leeyahay waxaan ka warramayaa boqolka qof ee bini aadamka ugu raadaynta badan. 3 shardi baanan u dhigay. shardiga koowaad, qofkani waa inuu qof xaqiiqi yahay buu tilmaamayaa. yacni xaqiiqiga maxaa looga jeedaa? waxay leeyihin taariikhda bini aadamka dad baa iska jira ustuura loo malaynayo. iminka xakiimu siin oo kale, lawtso nin la yidhaahdaa jiro jiniiso ay xikam ka soo naqliyaan. waa sida cigaal shidaadkeennoo kale, qof jiray ma aha mise ma ahayn ayay ku muransan yihiin. marka wuxuu leeyahay qofku waa inuu horta aanu noqonin dadkaa aan laba garanaynine qof xaqiiqiyoo la garanayo waa inuu yahay. waa marka labaadee buu yidhi waa inuu noqdaa qof raad badan nolosha kaga tegey. raad badan nolosha kaga tegey waxaan uga jeedaa buu yidhi xataa raadku ha xumaado ama ha samaado. walidaalika dadka uu boqolka uu leeyahay bini aadamkay ugu raadaynta badnaa, hitler baa ugu jira. hitler raadayntuu dunida raadeeyey waa maxay? dhib buu ku raadeeyey, dee wuxuu ku caanbaxay mushkilad. marka wuxuu leeyahay bal adigu bini aadam waxaad doonto ku raadee, ama waalli ka warkeene ama wanaag ka warkeene, boqolka qof ee bini aadam ugu raadayn badan baan rabaa. waxaa kaloo uu tilmaamay inuu noqdo qofkaasi aharkiisu ahar iqliimiya inaanu noqonina inuu noqdo maxay? ahar caalamiya, dunidoo dhan inuu raad ku samayn karo. buuggiisa markuu qorayay markaa wuxuu yidhi 3daa qiimaynood marka aan ku qiimeeyo qofka bini aadamkee ugu mudan basharka dunida soo maray oo dhammi waa nebi moxamed buu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. number 1 waxayaa buu yidhi nebi moxamed. number 2giisa ma taqaanin? waa sir isaac newton, ninkii fysigiska. number 3giisa ma garanaysaa? waa ciise, nebiyullaahi ciise. isagoo yuhuudiya muuse muxuu ka dhigay? nebi muuse nambarka 40aad buu ugu jiraa. boqolka qof ee dunida raadaynta ku leh, isagu nebigiisu raacsiisnaa wuxuu ka dhigay maxay? number 40 buu ku tilmaamayaa. ciisena nebi ciisena wuxuu ku tilmaamayaa maxay? number 3. su'aal baa isweydiin le markaa. tirakoobyada maanta la haya ee dunidu ay sheegato, masiixiyada inta sheegata ka badnayd baa la leeyahay inta sheegata muslimka. waay uu ciise number 3 uga dhigay ayaa la weydiiyey. maxaad ciise yacni wan u geyn weyde? waxa uu tilmaamayaa ciise waxa aan wanka u geyn waayey waa hal shay.
wuxuu leeyahay diinta nebi ciise qaybta akhlaaqiyaadka iyo waxaa ku saabsan raadaynteeda nebi ciise iska leh ama caqaa'idda maanta kiristanku haysta buu leeyahay bolos baa kaga badan maxay ciise marka waa diin aan u qaybinaya buu leeyahay laba qof inay raadaynteeda leeyihin qaybteeda caqaa'idda bolos baa ah buu leeyahay qofka koowaad ee raadaynta ku leh dee taliidka ninka ku waday weeyaan saddexdan ilaahay isku ilaaha ninka soo dhex geliyey diinta tan weeyaan waa gruubka saa awgeed buu leeyahay ciise aniga agtayda wuxuu ka yahay maxay number 3 buu tilmaamaya ama buu leeyahay moxamed calayhi salaatu wasalaam isagu keligii ayuu hadday caqiido tahay iyo hadday akhlaaq tahay iyo hadday dowladnimo tahay iyo hadday waxaba tahay islaamka keligii buu matalaa buu leeyahay keligii ayuu yahay markaan bashariyadoo dhan eega buu leeyahay taariikhdii reer nebi aadam oo dhan markaan eego qofka ugu mudan ee ugu weyn ee raad lihi waa nebi moxamed buu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ma irhaabi baa ugu raad badnaan lahaa dunida intuu soo maro mise qof la caayo la yidhaahdo waa dumar buu jecel yahay ama caynkan buu sameeya ama kan buu samaynaya ama caynkan samayn kari lahaa may waxa weeyaan innagaa gabnay taariikhdii islaamiga ahayd markaynu innagu soo bandhigi weynay iyagu inoo soo bandhigeen khuraafaadkoodii